السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنالكيني ماما شرف oo idin leh soo dhawaada meel kastoo dunida daafeeda aad ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah. dambigeena iyo dambi waalidkeen ba Allah cafiyo, nin walba muraadkoo leeyahay Allah u sahlo. walaalahayga qaaliga ah, maanta barnaamijkan idin haayo waa qiso xanuun badan. qisadaas oo ku dhacday wiil dariskeena ah. wiilkoo xaaskiisii dhowr mar waxay tiri inaa ifirtidaa jirto. wuxuu yiri walaalay say kuu furaa, aniga ma ku furaayi, rabitaanka shalay aan kuu guursaday aan qabaa maanta. walaalkeeyo walaasheeyo kuma furaayi, walaalow ilaa ifur ma ku furaayi, maxaa iga tabanee, biil waa ku siiyaa, maxaa dhacay sabab maya tiri inaa ifurtid ma ahana wax kaloo jirto ma laga ciyaalayna u heesaa. markaasuu yiri ma ku furaayi. muddo kadib waxay soo jiidaan maalin maalmaha kamid waxay samaysay maadaama ninkan waaba ku fur waaya madaxii ku siiwaa soo maa ya anaaba aqaan shaqadiis. maalin maalmaha kamid waxay samaysay inay meesha ajibka inta tagtay soo gadato 2 litir oo shidaal baasiin. mar alaal markuu seexdo 5 saac habeenimo ay marayso saacada bay inta shidaalkii soo qaadatay hurdada meel fiican asagana u marayso ay saas inta ugu shubtay taraqna qabsatay bay gurigii iyo ninkii hal mar wuxuu isla yiraahdeen holac isla qabsaday bow. dadkii dariska isku soo baxay waa la isku soo baxay, ninkii holcaya guriga ka soo baxay. ilaa bil aadanka dhiigga hadii asagana holc taabto asagaaba shidaal ka daran. wiilkii holcaya guriga ka soo baxay markaasuu soo cararay. hooyadiisa meel yar oo hortooda xaafada hortooda degneeda waxay isku jireen. hooyadu soo cararay hooyo isagoo gubanayo holcaya. markaas hooyadii markay soo baxday mas wiilkeedii holcay qaraacan. hooyadii aad bay u qaraacantay, gurigii ku laabatay, bahal busto inta soo qabatay korka ka saartay. bustii markay korka ka saartay wiilkii holcayo bay waxay sameysay isbitaal la geeyay. bas markii waa la carartay hooyadii isbitaal la geeyay. isbitaalkii la geeyay 5 saac habeenimo ahayd, 6 saac 7 saac 8 saac 9 saac 10 saac markay tahayna naftu waa ka baxday wiilkii oo dhintay. walaalihiis wiilkii iyo hooyadii ma aha laakiin walaalihiis iyo qaraabadii waxay dhaheen inaanan la dhaafin naagta wiilkeena sidaas u gashay, in ayadana lala duuga ma ahane ma noolaanay ma noolaanaysaba. hooyadii aad tiri maya wiilkeygii haddii la dilo wiilkeygi ma aysan noqonayo. waa maya lama dilaayo ayadana ilaa yawm alqiyaamaha allah la xisaabtamaayo. saasay ahaanaysaa. wiilkeygina waa iga dhintay ayadana lama dilaayo. magaaladeeda meesha yarta ka gasho ma la taabanayo. hooyadii sidaasay ku sabartay. ayadii sidii bay ilmaheedii 2 cunug agoon uga dhigtay. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. walaalaheena qaaliga ma ahan inaan saas isku galno, ma ahan in anaga aan yacni cadaabti gacmaheena ku subsano, ma ahan inaan anaga isgubno, ma ahan inaan anaga isdilno. wallaahi bilaahi tallaahi ma aqaan adduunyada ma aakhira ma garanayo. ayaantan dhibaatadaas ayaa magaaladii dil qof la dilaayo wax lagu dilo aqoon iyo dhibaatadaas iska soo badatay. qisada aad baan ugu murugooday. dad channelkeeda marka walaalahayga ilaahay koleyba qaatumada hanoo toosiyo, maalinteen maalin khayr qabta Allah ka dhigo. walaalay adigana gabaray iska day dabka qofka aad gubaysid. walaalow adigana ha gubin xaaskaaga oo ma banaano dabka. marka haddii aad channelkeyga ku cusub tahay subscribe dheh, ii share garay, like-na ii saar, comment-na ka bixi barnaamijka. waad ku mahadsantahay daawashada ay daawateen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.